السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدينتا waad salaamantihiin waxaan rabnay inaan idin sharaxno barnaamij maalin dhexdaas maalinkii arbacada hadda lasoo dhaafayay Abriil 20-keeda iskuulka aan ku sameynay oo kinigaanka loo sameeyay marka wuxuu ka hadlayaa sidewords waxa laga wadaa ereyada oo aad markaad aragto hore aad ardayga laga rabo inuu mataqaan hore ka akhriyo waa ereyada aragtida la yiraahdaa oo macnaha tusaale ahaan koodan insha Allah waan idin sheegi doonaa ereyadan waxay ka mid yihiin boqolkiiba 75 ciyaalka buugaagtooda ay ku qoran yihiin waa ereyo mataqaana maalin kasta ay ciyaalka arkaan oo muhiim ah marka ereyadaas waxaa ka mid ah markii ciyaalka arkaan inay akhriyaan oo macnaha canugii uusan ku rafaadin qaabku u akhrin lahaa qaarkood mataqaana qaabkay u qoran yihiin ayaa mataqaana laga yaabaa canugu inuu ku wareero sidaas darteeda hadda tusaale ahaan meesha waxaa ku qoran the ayaa ku qoran oo waxa macnaha hadda markii lagu dhawaaqayo waa ereydan waa side words laakiin markii ciyaalka waxa laga yaabaa qofka haduusan aqoon canuga inuu dhaho ta iyo ha iyo ahaan camal meeshii la rabo inuu dhaho the inuu dhaho marka canuga hadduu ereyadan oo side words la yiraahdo oo adiga ilaa iyo 100 erey gaarayaan canuga hadduu yaqaano waxay u fududeynaysaa akhriska ay u fududeynaysaa marka side words maxay ka caawinaysaa canuga hadduu ereyadaas barto waxay ka caawinaysaa lambar 1 saad u jeedaan canugan buug akhrinayo confidence-ga waxa laga wadaa waa waxa qofka canuga in uu kalsooni u yeesho hadduu ereyadaas yaqaano waxa kaloo ka caawinaysaa markuu garanayo ereyadan side words-ka ah comprehension waxa la yiraahdaa fahamka macnaha canuga ardayga inuu fahmayo wuxuu akhrinayo inuu fahmayo waxay kaloo ka caawinaysaa context-ga oo macnaha ah qaabka uu canuga buugi uu akhrinayo tusaale ahaan adiga the boy run around the playground run waa ereyo oo waxa hadda side words waayo oo waa laga garanayo canugi inuu fahmo oo halkaas erey hadduu yaqaan waxay ka caawinaysaa in aad meeshaan ay ku jirto in la orday ay ku jirto tusaale ahaan run buu akhriyo run waa erey side words laga ayuu ka mid yahay ereyadiisi marka inuu saas ku fahmo tusaale ahaan ereyada side words-yada ah fudud ee la rabo canuga inuu yaqaano garanayo oo u baahnayn inuusan la xarbin inuu ku rafaadin waxa ka mid ah kindergarten-ka tusaale ahaan waa but waa do waa have waa he iyo waa she iyo the soo jeedaan intaan ka badan waayo macallimiintana way hayaan oo ereyada side words-ka ah qaarkoodana waxay ugu qoran yihiin folder-ka ma canuga loo soo diibay gadaal ay ugu qoran yihiin haddaad haysaninno macallinkaada kindergarten-kaad u imaan kartaa aad weydiisan kartaa first grade ereyada side words-ka haystaan wuu ka duwan yahay second grade wuu ka duwan yahay iyadana marka macallimiinta ayaad weydiin kartaa waxaana aad leedahay ereyada side words-ka haddaad xasuusataan dadka familiyada qaarkood ee maalin dhexaas yimid waxaa la siiyey kan ayaa la siiyey gamekan waa game waxaa ku jiro ereyada side words-ka ku jira waayo marka haddii la idin siiyo kan guriga ku practice gareeya ku bara ciyaalka haddii aadan haysaninna waad imaan kartaa iskuulka waad imaan kartaa waana lagu siinayaa insha Allah macnaha ereyada muhiimaddu waxay ka caawinayaan boqolkan erey hadhow markuu canuga wax akhrinayo inuu mataqaanaaye uu kalsooni yeesho canugan wixina fahmo uu mataqaanaa u fududaato inuu buugaagta u jeclaado akhriskooda marka haddii aad habeen walba 20 daqiiqo gelisaan canugiina akhriskiisa aad buu u korayaa marka waad salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh